hawlgal ay sameeyeen ciidamada booliska gobolka Sool waxay maanta ku soo qabteen khamri gaaraya 200 oo foosto wax ka badan kaasoo ay keeneen maanta isla maanta maxkamadda degmada Laascaanood oo xukumo kala duwan ku fulisay goob fagaaraha ay maxkamaddu ku burburisay waxaana ka soo qabgalay maamulka gobolka Sool kan degmada Laascaanood iyo laamaha amaanka ugu horreyn gudoomiyaha maxkamadda ayaa ka warbixiyay xukunkan ay maanta ku rideen waxay xukuntay khamriga 2 foosto iyo 4 dhala ah oo laga soo qabtay gobolka Sool waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa taliye qaybeedka booliska Mr Gooni oo si arxan darro ula dagaalamaya khamriga iyo mukhadaraadka baan u mahad celinayay ciidankiisana u mahad celinaynaa xukunka isaga maanta soo baxay waxaana lagu xukumay saddexdii nin ee waday khamriga waday min 3 sano oo xadhiga oo looga bilaabayo isla maanta oo la soo qabtay istiraajooga lagu xukumay Rumaaniya waxba leh sababtoo ah deebaha ka dhibaatadiisa la dagaalamaya min 3 sano oo xadhiga iyo min 3 milyan oo shilin Soomaaliland oo ganaaxa gaadhigii lagu soo qabtayna waxaanu ku ganaaxnay qiimihiisa 5% waxaanu kale ku xukunnay khamriga in lagu burburiyo meel fagaara ah sidoo kale maamulka gobolka Sool iyo kan degmada Laascaanood Oqaaliyo wax garad ayaa dhankooda ku dheeraaday ammaan iyo bogaadina u soo jeediyay ciidamada booliska Soomaaliland sida wanaagsan ay u soo qabteen khamrigan iyo ragii watay ciidanka soo qabtayna waxa weeye waa ciidan la dagaalamay muqaabaraadkii aafada ahaa ee ugu xumaa ee faraha baan ku hayo wayna mahadsan yihiin waxaanu la leenahay halkiina ka sii wada dadaalkiina taliye Gooni isuuyiina hawlgalkiisuba kala joogsan saasuu iyo ciidankiisuba waxaanu mahad celinaynaa ciidanka booliiska oo ugu horeeya taliyaha qaybta waxaan leenahay tallaabada qaadeen oo tallaabo loo baahan yahay maanta halkan waxa lagu soo qabtay khamri dhan 2 foosto iyo badh waa khamri fara badan khamriga inaga la soo wadi idinka la doonay maankiina lagu dooriyo idinka la doonay inaad dambi ku kashaan iyo wax ilaahay uu nacdalay waxaan u hambalyeeyaa taliyaha qaybta dhammaan saraakiisha ciidanka booliska hadday tahay saraakiil xigeen alifley dabley inta waa hambalyeeyaa waa taliyaha rugta weeye kala bayd waa ninka ilaa xalay khamriga guulgalka ugu jiray saakana ku guuleystay markii uu qabtay la soo hadlay anigu aan ku baxay aan saa ku raadinay taliyaasha rugaha oo tuulooyinka iyo degmooyinka oo dhan way shaqaynayaan dhammaan horta ciidanka booliiska ee gobolka ayaa maanta insha Allah abaalkoodana way heli doonaan sida hore loo sheegay haddaan dadweynaha iskaashanina aan wada shaqeynta booliiska waxba qaban karo maaha markii ugu horeysay ciidamada boolisku ay soo qabtaan howlgallo ay sameeyeen khamri inta gaaraya Mukhtaar Cabdi Jaamac wararka howlkayba afaafka hore maxkamadda Laascaanood magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u labisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha